Soomaali waa ogtiin shanta qaaradood baa laga soo daayay qabiil waa lagu soo deyn waay urur waa lagu deyn waay maamul goboleed waa lagu deyn waay maxaa lagu daayay calankaas buluuga lagu daayay calanka buluuga marka ninna male waana marka wada ilaashan calanka shakhsi male xil baa naga wada saaran ninka xagga jooga ninka xagga jooga waad u wada dhaarateen marka qoriyaad qaadanaysa noocyada ka noqonaysa waa u wada dhaarateen waxa horay u qaldamay wala Soomaaliya ninka askariga madaxdiisa qaldamay ninka askariga marna ma qaldama asaga nin waxa waay lagu shaqeynayo oo shaqadii waa xoog dalka madaxdii Jubbaland xukuumaysa haday qaldantay in anaga booleyna u kurto ma anaga reer Jubbaland baan nahay reer Jubbaland halkaas waxaan kala dawladda federaalka Soomaaliya kan nahay كاين دولة بلاد يدا ووالالهنا درس بان هاي داد انت سكولا سونورا بان هاي ايش افريكان با اسلان هاي waxa gaawad oo geeso aan u qabno ma jirto anag cid aan ku duuleynana ma jirto cid aan ku kordoonayna ma jirto shacabka degan waa shacabka anag xaqi dadka wada isdhalay waa dad wada dhashay qoriga waxa lagu soo dhiibay in xabad soo rido qof Soomaaliya ku dhacdo askariga inta joogna xabad u rido qof Soomaaliya ku dhacdo qof kale ku dhacay Soomaaliya waa ma jirto guriga ay gumayso waa guri Soomaaliya labada dhinac qof inuu fikira ayaa loo baahay ninka shaqo dhimanayo waa adiga anugu qaxay waa adiga hooyada qaxaysa waa adiga waxa marka loo baahay dhalinyarada in ka dambayso dadka waa saaxiib bale aqliga saaxiib loo yahay gogasha saaxiib lagu yahay dhalinyarada saaxiib lagu yahay da'da saaxiib lagu yahay waa dhibowga saaxiib lagu yahay aniga hebel isku dhibowga waqti waan soo qoran dadka asaga dhulka lama kala laha yaan waxa imaan doonto waqti dawladda Soomaaliya qof ka maqan shufta la gelin doon listiga shuftada u gali doon waa soo dhawdaa maalmo dhow dawladdiina aan jecel oo in helan saraakiishiina aan jecel oo madaxdiina aan jecel hal yimaado dhalinyarada maqan baa u direynaa ha soo galeen ciidu Ilaahay hanuun la doonana Ilaahay ha soo hanuuniyo inuu Ilaahay soo hanuuniyo oo wadankooda ku soo celiyo oo nabad gurigooda ku soo celiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala yaan u weydiinayna ciidu Ilaahay hanuun la doonina oo Soomaali dib la raadinaysana Ilaahay naga qabto nimu doona ha noqdo jifadu doona ha noqdo qofku doona ha noqdo midabku doona ha lahaada sidoo doona ha nolol dhasha qofkii Soomaaliya dib la doonayo Ilaahu naga qabo qofkii Soomaaliya qeyr la doonayana Ilaahu soo hanuuni oo Ilaahu wada toosan ku soo aad ba sharaf noogu tahay inay maanta xalayna soo gaareen nin masuul ah ayaa saddex askari oo ka tirsan ciidanka ugu dambeeyay ee laga keenay magaalada Doble kulankoodu ahaa laakiin meesha laga soo qaaday waxay ahayd Farsanguni awalan waxaan idin leeyahay soo dhawaada waxaa dhici kara in la idin sheegay fikrado aan sax ahayn halkan waxaa joogo dawladdiini waxaa joogo annagoo dawladda wakiilka ah waxaa jooga ciidanka qaranka waxa la hayana shaqada dawladda way adinkuna qayb baa ka tigi aad baa idin soo dhaweynaynaa intaa kadib Soomaaliya waxay leedahay ujeedadaasna waxa weeye midnimo iyo wadajir iyo dawladnimo dhib iyo dagaalna waa laga soo daalay oo waxa la marayaa 3 sano iyo wax ka badan inta sida u fikirteen waan kaga mahad celinayaa waa sida saxda ah ayaan dhihi karaa runtii in markaad imaadeen meel ka mid ah buqcad Kenya gudaheeda ah aad fikirteen oo maskaxdiina ay fahamtay xagay wax ku socdaan iyo xagee la idin wada runtii go'aanka qaadateena waa go'aan geesinimo oo sharafkiina iyo jiritaankiina iyo dadnimadeena qayb ka noqon doono
dowladnimada iyo waxa aad ku fikirteen qayb ka noqotaan waxa la oran jiray dadka xusuus weyn ku abuuri doona adinkuna qayb aad ka noqon doontaan dadka ciidanka ah oo shaqada dawliga haya ama mas'uuliyiintana qayb ka noqon doontaan waxaan kaloo leeyahay oo aynu kugu mahadcelinayaa waxay tahay in aad damiirkiinni idin siin waayey inaad xabad ku soo ridaan dadkiinni adinkoo laydin qalday laydinka dhaadhiciyey waxa loo dagaalamaya xaq inay tahay waa damiirkiinni wuxuu idin siin waayey inaysan xaq ahayn ayadoo maanta ay wadanimadii yar tahay ayadoo maanta wixii saxda ahaa iyo wixii kale dadkii siyaasiyiinta noo ahaa qaarkood ay qaribayaan marka horta waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed baan idinkaga mahadcelinayaa waxyaabaha aad samayseen oo geesinimada leh sharafta aad maxaa la dhahaa ummadda Soomaaliyeed u keenteen ciidanka Soomaaliya sharafta aad u keenteen ku mahadsantihiin waxaan rabaa waxyaabo kalena inaan bayaamiyo oon ku bayaamiyo dadka inay idinku daydaan ay tahay maanta dadka inay idinku daydaan tahay ma ahan maxaa la dhahaa ciidanka kaliya waxay tahay xildhibaanadii federaalka oo aan ka hadlaynin in maanta duulaan lagu yahay ummadda Soomaaliyeed oo ay calaashaan niman maanta dambiilayaal baa oran karaa xuduudda ka gudbay si kasta ha u caraysnaadaan si kasta waxay doonaan ha u qabaan inay xuduudda inta ka gudbaan dadkoodii la soo dagaalamaan waa dembi maxamedow baa dembi ku jira maxamuud sayid baa dembi ku jira run ahaantii ma jeclaysan inaan kelmadahan dhaho cabdirashiid janan baa dembi ku jira nin walba oo siyaasiya oo arrintan ka dhigaya inay tahay wax caadiya oo dadka balad xaawo in la laayo oo lagu laayo maxaa la dhahaa madaafiic ay Kenya leedahay raaliga ka ah oo markay inay ka hadlaan ay tahay siyaasadeynaya oo oranay niman carooday weey sida ay noo soo dhaweeyeen marka waxyaabaha hadda aan aaminsanayn nalaga dhaadhiciyey iyo waxyaabaha hadda maxaan ku leedahay la kulannay waa kala labo runtii waxaa la yidhi wixii ka horreeyey oo ciidankaas ka tegey inay xiran yihiin qoryaha laga wada qaaday maxaan ku leedahay ay mawada xabiis yihiin al-shabaabkii annaga isku midna runtii yaa ciidanka sida baan laga dhaadhiciyey halkaa ciidanka jooga dhammaan nin ay dagaal ku go-an yihiin oo dagaal lama rabo runtii ma jiro marka sida badan wuxuu u badan yahay nin seed wax kula xiriirtaa haddii dowladdina ay qoriga kaa qaadayso ay ku xirayso meesha loo carari lahaa intana ay saan tahay oo Soomaalinimo jirin oo macalinkii qori lagu xabad lagu riday runtii waa jahwareer marka ayarada sida badan horta meesha waxa ku hayo waa nooca annaga isbiima ma hadda soo galno waxaydan qabsada dalkiina Soomaaliyeed Soomaa waxa idinka horreeyay waxa la waxay ka qabsadeen wax idin dhaama male inta calanka xabad ku riday leedeen ayaga soo dhiibay marka kulli walaalayaal ragga iga dambeeyay walaalayaal waxaan baa u dirayaa inay Soomaalinimo wax dhaama jirin waxaan shakhsiyaalka maxaan ku leedahay danaystayaalka ee dambiilaha dalka eed ka galina beenti iyo magaranaysa barnaamijyada ee dhalinyarada Soomaaliyeed u shubeen inay iska dhaligareeyaan Soomaalina waxa dhaamana waxaan ku leedahay ay u soo noqdaan shaqaalaha iyo wanaagga inay soo dhaweeyeen waxaan u haysanay annaga waxaan moodnay in lagu sameeynayo in la dhigayo markii la keenay aan qoryaha laga qaadayo xabsi lagu xareynayo lagu sameeynayo meelaha la gudbinayo oo la areenayo meelaha lagu areenayo waxyaabaha laga dhaliyo noocaas baayaad waxaan ka dardaarmayaa walaalaheena aan ka soo tagnay meel kasta jooga in ay waxaas waxba ka jirin sharaf iyo wanaag iyo Soomaalinimo iyo hadii dhaqankeeda ay ka jira Soomaaliyeed in wadanka uu ka yeelaba wadankan oo ka jira aan ugu baaqiyaa walaalaheena aan ka soo tagnay iyo kuwa meelaha meel kasta jooga annaga waxaan loo sheekay in ay tahay meeshan markii la keenay aan imaano loo sheekay in xabsina lagu xiraayo xornimo darro ay meesha taalo kuwii naga soo horeeyay meesha meelaha lagu xijinayo tan iyada way intooday wax ka jirana malaha in naftooda real anna isku soo biimeen inta caalamka Soomaaliyeed xabad ku riileen inaan waxaan ugu tiri galnay aan
annaga xabsi ku waarno yaan ugu tirigalnay aan isku soo biimeynay marka tiina geesinimadii aan ku soo galnay maasha allah ilaah baa micnaha aan noo rumeeyey waxaan aragnay soo dhaweyn waxaan aragnay soomaalinimo waxaan aragnay bulshadii ciyaalkii iyo carruurtii gacmaha isqabsanayo maasha allah waxaad aragtaan qaabka ay u hadlayaan halka laga soo qaaday waxay ahayd baarsanguuni taliska lagu soo aroorin waxay ahayd meesha la yidhaahdo dhobley waana laga soo qaaday waxaana la keenay xaduudii balaxawi iyo kenya u dhexaysay gudaha kenya ayaa la keenay oo madheera waxaana la rabay inay ka duulaan halka iyada ah kuna soo dhibaateeyaan shacabkooda soomaaliyeed iyo ciidankooda xoogga dalka soomaaliyeedba ay ku dhibaateeyaan ayaa la rabay xaqiiqda markay hadlayeen waad maqlayseen in la leeyahay loogu qudbaynaya haddaad meesha tagtaan hubkaa laydinka dhigiyaa kuwa horoo tagay hubkaa laga dhigi waa laydin xiriyaa dhibaata xooglaa laydinku samaynaya in la leeyahay hadda way ka hadlayeen waad maqlayseen xaqiiqdii marka laga hadla halkan waxaa noo imaaday intuu dagaalka dhacay ayaan dhaweyd kadib ilaa iyo 40 askari rag ka badan si wanaagsan u buuxda ayaa loo soo dhaweynayay hadda halkaa waxaa nala fadhiyo raggii laga keenay baarsanguuni iyo dhobley waa rag geesiyaal waa rag aan u mahad celinayna boqolkiiba boqol say u garteen dantooda iyo danta soomaaliyeedba xaqiiqda marka laga hadlana waxaan u soo dhaweynaynaa si buuxda waxay imaadeen deegaankoodii waxay imaadeen dadkoodii soomaaliyeed waxay ka mid yihiin ciidankooda xoogga dalka soomaaliyeed maantana waxay leeyihiin haddii oo la soo kulmeen in ciidankii database la marinayo oo dhammaan tirkoob buux la marinayo oo saraakiil xoogga dalka soomaaliyeed ay u imaaday taliyihii guutadii iyo dhammaan liiska hore oo taliyihii uu qoray muusan gudbinin wuxuu u gudbin waayna waxay ahayd in ciidankan uu ka soo baxaya maxaan ku rahdaa hadda meesha ku jiro uu ka soo bixi doono runtii ninkii ka faa'iidaysta arrintaas oo tirkoobkaa ka soo qaybgala waa ragnimo ninkii ka soo qaybgali waaya oo dib u dhac ay ku dhacdana xaqiiqdii wuxuu noqon doonaa nin burcad oo ku sifaysan burcadnimo ciddii ka imaada cid wax loo dhimayo ma jirta waa xoogga dalka soomaaliyeed waa rag la qalday nin dambiila oo qarax uu ku xiran yahay maanta in ay waardiyeeyaan oo danahooda ugu waardiyeeyaan ayagoo dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedba la joogi kara sax maaha dhallinyaradaas waxaan leeyahay marka dhallinyaradaas qaybaheeda kala duwan meel kastoo joogto meesha fadhida ha ka imaadeena ciidankooda xoogga dalka soomaaliyeed ha u imaadeena deegaankooda ha u imaadeena runtii waa la dhiirigelin waxay ka mid yihiin raggoodii lambarkooda ciidana la siin dalacsiintooda la siin qaybta xoogga dalka soomaaliyeed ay ku lahayeen taliyihii guutada ula fadhiya way helayaan insha allahu tacaala raggaan hadda ugu soo horreeyo hadda imaadina waxaan filaya inay noqon doonaan saraakiil taliyahana uu ula dhaqmi doono si gaar oo xos leh uu aad u xusi doono baaqaasna waan u dirayaa dhallinyarada halka iyada ku jirta waxaa kaloon rabaa baaq inaan u jeediyey dowladda kenya oo daris aan la nahay dowladda kenya annaga daris baan nahay inaan dhibaatayna ma rabno waxaan ilaalinaynaa darisnimada waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinaa xildhibaanada kenya culummada kenya shacabka kenya dhammaan gudoomiyaha maxaan ku rahdaa degmada kenya madheera gudoomiyaha gobolka maxaan ku rahdaa akoontiga hadda joogo dhammaantood si buuxda ayaan ugu mahad celinaa aad bay ugu digeen aad bayna uga hadleen inaysan dhibaato ka dhicin kenya waad arkayseen habeen hore in hoobiyin ugula soo tuuraya xaarada bergeerka oo hadda ay degan yihiin nimankaa siyaasiyiinta ay degan yihiin oo burcadda ah runtii annagana umaana jawaabin wax hoobiy ahna kumaana rigin waxaa kalood arkayseen shalay diyaarad in shacabka lagu baraxsiinay baled xaawo degnaa oo guryaha baalashooda loo saaray diyaaradihii dagaalka oo miigag ahaa in guryaha baalasha loo saaray oo xarooyinka ay dul maraysay runtii waxaan u mahad celinaa oo kale saraakiisha xarada joogtay ee maxaan ku rahdaa xoogga dalka soomaaliyeed ayagoo lidka diyaaradaha haysta oo daqiiqada gudaheed soo ridi kara inaysan xabad ku ridin diyaaradihii ayaga ahaa waxaan leeyahay markaa dowladda kenya diyaaradaheeda hadday xaduudda mar dambe ku soo gudbaan wixii gaara ayadaa gaarsiisay dhulka annagaa iska leh diyaarad aanan loo fasaxinna iskama soo gudbi karto dalkii iyo dadkii ay doorashada ka rabeen 9 sano ay xukumeen ayaa waxay la dhacayaan biiteen iyo hoobiyaha laga soo ridaya xaduudda kenya gudaha 6 kilomitir oo kenya gudaheeda laga soo ridaya askar kuma dhacayo wuxuu ku dhacayaa dad shacab ah ninka marka hoobiye in indhaha isku qabto ku soo ridaya balaxaawa oo hooyadii ay degan tahay oo walaashii ay degan tahay ninkaan nololna ma raba inuu noolaanayana ma qabo mana filaya hadda kadib inuu nolol raadin doono haddii ilaah raalli ka noqdo ayagana waxaan leeyahay dembiyaalka waa u qoran yihiin waana lagula xisaabtami doonaa
shacabka Soomaaliyeed kula xisaabtami doono dawladda Soomaaliya kula xisaabtami doonto annaga kula xisaabtamayna cid kasta oo Soomaaliyeed la xisaabtamayso insha Allah ta'ala warkayga intaas ayaan kusoo gabagabeynaa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan mas'uuliyiinta iyo saraakiisha iyo ragga maxaan ku radaa ciidankooda iyo calankooda inay u imaadaan maxaan ku radaa ugu talagalayaan u mahadcelinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa kale oo rabaa inaan sameeyo iyo ragilnaa ragga aan u sameeyno oo maxaan ku radaa wax maanta ay saabuun iyo wax ku gataan raggu waa raggiini